السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu qaadanaa casharo ku saabsan percentage waxaa la dhahaa boqoley. af Soomaali waxaa la dhahaa boqoley. percentage waxaa macnaha waxaa weeye boqoley. calaamadda horta si loo qoro waa qaabkaas oo boqolkiiba boqol u taagan tahay. marka percentage ama xisaabta percentage waxay ka mid tahay xisaabaadka aadka aan u isticmaalno nolosheena caadiga ah. marka waxaan qaadanaa casharo ku saabsan percentage. horta percentage maxaa tahay? percentage waxaa la dhahaa waa fraction with denominator boqol is called percentage. waa jajabka uu hoosiyeysu yahay boqol. hoosiyeysa ayaa waxaa ah boqol. tusaale 12 hooseeye u ah boqol. jajab kasta oo boqol hoosiyeysu yahay boqol ayaa waxaa la dhahaa percentage. jajab kasta oo hoosiyeysu yahay boqol ayaa la dhahaa percentage. tusaale 50 oo loo qeybiyey boqol macnaha waxaa boqolkiiba 50. percentage waxaa boqolkiiba 50 waxaa la dhahaa percentage. calaamadda la isticmaalo and it's denoted by waxaa lagu calaamayaa the sample. calaamaddaas ayaa percentage la dhahaa. calaamaddaas ayaa boqolkiiba boqol la dhahaa ama percentage. in our daily life nolosheena caadiga ah we see waxaan aragnaa a lot of statement with numbers kuwaasoo leh nambaro followed by a sample. calaamaddaas percentage raaca nolosheena caadiga ah waxaan maalin kasta aragnaa nambaro raaca calaamaddan percentage-ka. a number followed by percentage calaamaddaas raacda number kasta oo raaca calaamaddaasi iskalood waxaa la dhahaa percentage baa la dhahaa boqoley or percent baa la dhahaa. calaamad kasto nolosheena caadiga maalin kasta waxaan aragnaa nambaro raaca calaamaddaas boqolkiiba. tusaale waxaan aragnaa maalin kasta wax la xayeysiinayo oo la dhahay boqolkiiba 50 waa discount lagu sameeyey ama qiimo dhimis lagu sameeyey. marka maxaa la dhahaa calaamaddaas ayaa la dhahaa percentage ama boqolkiiba 20. market hebel ama maxaa la dhahaa supermarket hebel boqolkiiba 20 adeega uu gado waa discount lagu sameeyey ama qiimo dhimis lagu sameeyey. maalin kasta maqalna marka tiro kasta oo raaca calaamaddaas waxaa la dhahaa percentage ama percent. the term percent tibixaas ama lambarkaas percent comes from wuxuu ka yimaadi the Latin phrase jumlad Latin ah percentum markaas percentage la ama percent la micnaheedu waxaa waaye by the 100. macnaha waxaa waaye boqol ayaa loo qaybiyey. tiro loo qaybiyey boqol ayaa waxaa la dhahaa percentage. percentage is another way waa hab kale of expression taasoo lagu qeexayo a part of a whole number. tiro whole number ah ayaa waxaa lagu hab kale oo lagu qeexayo tiro whole number ayaa la dhahaa percentage. macnaha waxaa 12 loo qaybiyey boqol waa whole number oo loo qaybiyey percentage-ki ayaa waxaa la dhahaa percentage. 100% boqolkiiba boqol of a quantity shay hadduu boqolkiiba boqol yahay waxaa loo qori boqolkiiba boqol ayaa loo qori. macnaha shayga boqolkiiba boqol waa free ama boqolkiiba boqol waa tayadiisa aad ayay u sareysaa ama boqolkiiba boqol qiimo dhimis ayaa lagu sameeyey. marka haddii loo boqolkiiba boqol qor waxaa waaye boqol loo qeybiyey boqol. for example haddii soo qaadno if 40 arday ayaa are included in a class. 40 arday ayaa waxay iska diiwaangeliyeen fasal bay iska diiwaangeliyeen and all 50 are percent. dhammaan 40 arday ayaa fasalka iska diiwaangeliyey dhammaantood fasalka ayay xaadir ku yahay maalin kasta. waxaan dhahaynaa boqolkiiba boqol ardaydu fasalka ayay xaadir ku yihiin maalin kasta. waxaan dhahaynaa marka ardaydan boqolkiiba boqol maalin kasta way imaan oo fasalka ay xaadir ku yihiin mid kama maqna. laakiin haddii 25 maqan yihiin waxaan dhahaynaa boqolkiiba 25 ardaydan ma timaado oo xaadir fasalka kuma aha. the word percent ereyga percent means waxaa looga jeedaa per 100 in boqol shay loo qaybiyo boqol ayaa looga jeedaa or every 100. sidaas darteed haddii cali qof loo uu god helo 83 dhibic ayuu imtixaan ka helay out of
boqolkiiba boqol. Waxaa laga rabaa inuu boqolkiiba boqol keeno. Hadda wuxuu keenay 83 ayuu keenay. Haddana waxaan leenahay EGOT wuxuu helay 83%. Waxaan qoraynaa wuxuu helay 83 boqolkiiba ayuu helay. waxaa laga rabaa inuu keeno boqolkiiba boqol. oo macnaha waa ninkan waa caadi ma aha tiisa, laakiin dhibcihii boqolkiiba boqol la rabay wuxuu keenay 83. marka waxaan qoraynaa boqolkiiba 83 ayuu imtixaanka totalka keenay. haddaan qaadno tusaalooyin koowaad waxaa waaye 20 loo qeybiyey 100. maxaa marka 20 loo qeybiyey 100 waxay noqon marka 20 oo loo qeybiyey 100 macnaheedu waxaa waaye boqolkiiba 20 noqon boqolkiiba soo qoraynaa boqolkiiba 20 ayaan qoraynaa kadibna calaamada percentage ayaan saaraynaa. marka waxay noqonaysaa boqolkiiba 20 loo qeybiyey 100. waxaan isla ogeyn inay percentage la dhaho fractionka hoostiisa uu yahay 100 ayaa waxaa la dhahaa percentage. marka 20 loo qeybiyey 100 waxaa loo qori karaa 20 boqolkiiba 20 oo calaamada 20 ka soo qori kadibna calaamada boqolka ama percentage-ka ayaad ka dambaysiina. si loo akhrin karo waxaa loo akhriyaa it is read as waxaa loo akhriyaa 20%. 20% ayaa maxaa la dhahaa dharkan discount lagu sameeyay qiimo dhimis lagu sameeyay. marka waxaa boqolkiiba 20 ay noqonayaan. tusaalaha labaad waa 15 loo qeybiyey 100. 15 loo qeybiyey 100 waxay noqon marka 15 loo qeybiyey 100 macnaheedu waxaa waaye 15 boqolkiiba 15 boqolkiiba ayaa la qori karaa. waxaa loo akhriyaa 15%. tusaalaha ku xiga waxaa waaye 5 oo loo qeybiyey 100. 5 oo loo qeybiyey 100 waxaan u qori karnaa 5% ama 5% boqolkiiba 5 ayaan qori karnaa. waxaan loo akhriyaa it is read as waxaa loo akhriyaa 5% ama boqolkiiba 5. mid ku xiga waxaa waaye waa 71 loo qeybiyey boqolkiiba 71 loo qeybiyey 100 waxaan u akhrin karnaa 71%. 71% 71 loo qeybiyey 100 waxaa waaye 71% macnaha boqolkiiba 71 waaye. midka u dambeeya example u dambeeya waxaa 89 oo loo qeybiyey 100 waxaan u qori karnaa 89%. 89% ayaan u qori karnaa. marka waxay noqon 89 loo qeybiyey 100 waxay la mid tahay waxaa waaye oo qori karnaa 89% ama 89 boqolkiiba ayuu ardaygan dhibcaha totalka uu keenay ayaa la dhihi karaa. marka percentage waa xisaabta kuwa ugu badan ama kuwa ugu muhiimsan xisaabaadka isticmaalna nolosheena caadiga maalinlaha ah.